بريها بيشة دكتور برا سبورتي أنا وليتي من برا محاكي ديال سبورتي ما بيشة خاص السعودي قدومي ملاهين وحياة وطنا كتدنا من هذا التام بيشة مش عمان حسب معنا ولا تشي بدن بالشدي ما كان تحتمل وحلو بعض الإشي إن بالشدي له جامي سبورتي له المريض marka ilaa ishag markaan wada tashi bulshadii anigu aan tagnay ilaa aan ishagay aan marka koonfurta wasiirka sportiga najax wada tashi sameeyay asnagii ishag wuxuu u dhigay anaan si magacaawno gudoomiye ku meel gaar ah oo si wada hawsha si dadgeliyo iyo si gaarsiyo doorasho oo ishag loo dheeyahay markaan aniga ishag ka maamul ahaan aan wada fariisanay aan qaadnay talada wasiirka soo jeediyay waxaan garwaasanayn in ay sheegay maadaama mulana uu yahay nin sheegay sportiga in badan ka soo shaqeeyay ilaahay qaran uu sheegay ka soo shaqeeyay marka aniga ahaan sheegay ka maamul ahaan mulana aan u dooranay ku meel gaar inuu hawsha sii wado marka waxaan ilaha mulana insha Allah shaqadana ku taalo sportiga bara aad u liita waxaan ka rabnaa inaad dargelisid kooxiyaha dhisid garoonkii aad wax ka bedeshid marka insha Allah ilaahay garabkaaga ka galo وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. دمان دمشق صدر الشيء مسؤولين الأمانة والسلامة يا أبو هريرة قدومية المدى قدومية حاجات كان عندنا في الشدة قدومية سبورتسكا ما شاء الله عاد وصل سنة كان احنا غيرت المدى ما شاء الله هم كان ما بحر موضوع إن بدل سبورتسكي كفليني عندنا ما شاء الله وحامل وصل حدا عندي وصول بريك ودي كمل وما نسي ود سبورتس كدمة ما شاء الله هذا يوم فرحنا علينا هاي مادام لقيتي مجال سبورتس لأن هاي عندنا هذا يوم فرحنا ما نسي إنه فري سبورتس كي يبدي ومقدار لا إله إلا دور شغل إن شاء الله وأنا فرحنا هذا يوم ما سنة أنت الناس كسوش راسي هرمون عن اليوم اللي جاي إن شاء الله. الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. aad baan usoo dhaweynaynaa insha allahu tacaala macnaha maamulka degmada intii xafladan soo abaabushay walow degmadan wax badan isboortiga uu ka dusanaay bulshadana aad iyo aad ugu baahnayd ay u danaynaysay waxaa looga fadhiyay in maanta ka horba ay soo dardargeliyaan oo kasoo shaqeeyaan alxamdulilah wax walba ilaahay maalintii ugu talagalay ayuu gaarsiin doonaa maalintii soo gaartay aad baan usoo dhaweynaynaa insha allahu tacaala haddaan nahay anoo hadda markaas ku hadlayo afka gudoomiye waaxeedka haddii ilaahay qadar mawlana waxaan ku leenahay waxaa lagu dhiibay xil culus oo si ku meel gaara ilaa heer macnaha doorasho aad ka gaarsiisid laga rabo insha allah ilaahay ha kula garab kalaan ku leenahay aad baan usoo dhaweynaynaa isboortiga degmada u baahan bulshada u baahan shacabku dhana u baahan wax aad loo danaynaya waaye mawlana waxaan kula ilaahay kuu garab galo soo dhawow aan kuleenahay insha allahu tacaala ciyaaraha degmada Barawe kadib markaan aragnay baahida loo qabo gudoomiye xiriirka kubadda cagta waqti xaadirkan munaasab aysan ahayn inay doorasho qaado si ku meel gaar ah intii doorasho xaq ah ay ka dhacayso waxaan garanay inaan u dhiibno gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta mudane sheekh xasan oo ah nin qaran ilaa heer qaran soo cayaaray waxay badana ka bedeli doona kubadda cagta intii intaas aan ka gaarayna asaga si ku meel gaar ah u dhiibno insha allah. madashan ay ku wada leeyihiin waa idin wada salaamayaa maca salaam runtii barnaamijka isboortiga markaan ka hadalno isboortiga horta maanaa waxaa ku dhisan tahay degmada waxay ku dhisan tahay gaar ahaan waxay dhiirigelin ay u tahay dhalinyarta iyo maanaa dadka ay kasoo qayb galaan maadaama markaan aragnay in heer doorasho baasha maanaa ay gaarto waxaa marka go-aansanay annaga kaliya maanaa maamulka kaliya ma ahan wasaaradda ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiirkeeda oo Ibrahim Ali Aadan Najax ayaa maana awaamiir culus ayuu soo durdhigay awaamiirtaas oo ay tahay in oo maana asaga oo mar dhow maana na soo gaari doono imaan doono oo imaashaha asaga imaanay runtii maana dhalinyaro badan oo deegaanka
ay ka faa'iideysan doonaan weli maanaa wuxuu sii wadaa in garoonka ciyaaraha inuu sii maanaa dhagax dhigo runtii maanaa garoonka markii la dhagax dhigo waa dareemi kartaan garoonka maanaa in oo dhismo uu heli karo nidaam badan uu heli karo xuduraa laga soo dhisay baydhaba hadda dhismo ku socoto barawna maanaa maanta liiditaan ana waxaan ugu imaaday keliya isfahan la-aan ama maamulkeeda ama nidaamka maanaa sportiga markaa talo badan aan gelinay asagna talo badan uu soo geliyey wuxuu xiriir la soo yeeshay qaybta oo maanaa wasaaradda uu qaabilsan degmada baraw shaarkey talo badan markaa la geliyey markaas maanaa waxaa noo soo baxday asagoo maanaa awaamirdii oo la duldhigay oo dhahay si ku meel gaar ah oo weli waqti dhow oo isniinta iyo jimcada inuu soo gaari doono beri iyo jimca ay tahay soo gaari doono oo asaga imaan doono magaalada laakiin markuu intuu ka imaanayo waan dhahnay guddoomiyana in aan baashan aan gaarsiino heer oo doorashadu waa suurtagali weyda annaga maanaa degma ahaan waxaa leeyahay wax doorasho ay la qaban karo ilaahay abuurta ma jiraan markaasa waxaan dhahay doorasho haddaan la qaban karin see maanaa arrintan ku dhacay waa doorasho dadka inay helaan xornimada inay helaan waa sax markaas wuxuu leeyahay xornimada waxaa ka wanaagsan marka annaga imaano annaga joog meeshka ah in ay doorashada ay dhacdo annaga maamul aan ahay dowladana xukunto annaga dowladaan hostaanaa waxaan go-aansanay marka dowladda warkeeda inaan qalban aan yeelno midda xigta markaa kadib bacdiyeen markaa kadib waxaa la go-aansaday in guddi ama macnaa guddoomiye si kumeel gaar ah oo weliba oo isbuucan dhexdiisa oo maanaa wasaaradda ay soo gaarayso oo ku shaqada lahaa markaa si kumeel gaar ah weli asaga ayaa maanaa bartilmaameed ahaan ayuu lagu sheegay in mawlaana maanaa xilkan loogu dhiibo waa recording waxaan ka hadlaya waa recording wax qarsoon maanaa ma ahan waa shay maanaa social media la dhihi karo berika maanaa guddoomiya go-aankaas lahaa ma ahan waa wasaaradda go-aankeeda annaga maamul aan nahay dowladdii annaga aan hoostagno maadaama go-aankaas ay soo dhejibay annagana maanaa waxaan ku go-aansanay si kumeel gaar ah intuu ninkan ka imaanaya wasiirka ka imaanaya iyo maanaa guddigiisa si kumeel gaar ahaan ah in arrinta bolooniga amaana lagu sii dhaqangeliyo ma ahan wax dikreeto la bixiye ma ahan wax dikreeto oo maanaa magacaabis loo sameeyo ma ahan waa shay si kumeel gaar ah intuu wasiirka ka imaanayo oo ninkan hoggaanka sii hayo marka aad u mahadsantihiin ninkan waxaan kula dardaar mawlaana maadaama oo maanaa xilkan mas-uuliyadda asaga maanaa si kumeel gaar ah loogu dhiibay waan kula shaqaynaynaa intuu wasiirka ka imaanayo wasiirka markuu yimaadana go-aanka qaadista annaga ma lahan waxaa iskale bulshaweynta deegaanka iskale oo qaybta sportiga iskale markaas go-aanka ayaga qaadan karaan laakiin si kumeel gaar ahaan annaga maamul ahaan culeyskii annaga la soo saaray bacdigeen inaan maanaa mawlaana si kumeel gaar ah xilkan uu sii wado ayaan ugu dhimi aadaan u mahadsantahay